kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliweyn Production kuna soo dhawaada barnaamijkeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonayo shirkii golaha wada tashiga qaran ee la dhoolayo oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo qodobo xasaasi ah oo maanta laga hadlay shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadaba waxaan idin wadaagi doonaa shirka furmay iyo wixii lagu lafaguray iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo miiska soo saaray qodobo culus wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wada tashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaan faahfaahin idinkaga heenaa qodobada kale oo daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo seefta gasha kala baxay soona saaray maro culus oo saameynaya golaha wasiirada waxaan idin wadaagi doonaa shaqaalaha dowladda oo mushaaraadka laga jaray iyo ra'iisul wasaare Xamza oo mushaaraadkii shaqaalaha dowladda u jeediyay howlgallada dalka ka socdo wararkii ugu dambeeyay talaabo culus oo qaaday ra'iisul wasaare Xamza iyo tirada lacagaha laga dhimay wasiirada oo qaarkood oo buuq uu ka taagan yahay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena qodobada kale oo daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda Mareykanka oo shaacisay magacyada madax shabaab ah oo aan hore loo aqoon iyo shakhsiyaadka shaacisay oo qaarkood nolosha lagu qabtay wararkii ugu dambeeyay bayaan ay soo saartay dowladda Mareykanka oo ay ku shaacisay magacyada shakhsiyaad shabaab ah oo qaarkood nolosha lagu qabtay qaarna lagu raad joogo xogtii ugu dambeysay ayaan idin la wadaagi doonaa qodobada kale oo daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgalkii gobolka Shabeellada Dhexe oo hal sabab darteed u istaagay iyo faahfaahin laga helayo sababta howlgalkaasi u istaagay ayaan warar dheeraad ah idinkaga heenaa macluumaadadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo bandhigtay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena asaateynta ugu gudagelin daawadayaal dhamaantiin waxay idinku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan like dhaadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadiina kale mahadsanidin faafinta ayaan ugu gudageli doonaa waxaan wararkeena ku bilaabayaa daawadayaal shirka golaha wada tashiga qaran ee u furmay maanta magaalada Muqdisho ka furmay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka iyada oo maanta madaxda maamul goboleedyada qaarkood miiska ay soo saareen qodobo culus xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka golaha wada tashiga qaran kaasi u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaa maanta waxa uu ahaa mid xasaasi ah waxaana shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo shanta maamul goboleed ee dalka ka jira furistaanka shirkan ayaa waxa uu ku bilowday isaarag horudhac ah iyo waliba kala warqadasho ku aadan xaaladii ugu dambeeyay ee wadanka sida ay noo sheegeen ila wareedo xilkaas oo kulanka goobjoogka ahaa madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale la sheegay in iyaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wada shaqeynta labada dhinac iyo xoojinta howlgallada dalka ka bilowday ee ka dhan ah dagaalyahanada argagixisada ee al-shabaab xogtan ayaa sidoo kale waxay taasi ku daraysaa in madaxdu ay falanqeyn doonaan arrimaha shidaalka oo ay haatan markaas faraha la gashay dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo heshiiskan shidaalka sidoo kale shirkan ayaa la sheegayaa in lagu soo qaaday gurmadka abaaraha maadaama haatan ay ka sii darayso xaaladda ibnaadnimo ee dalka ka jirta la wareejin lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in shirka dhaxmaray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho intiisa ugu badan maanta uu daarnaa in madaxda maamul goboleedyadu ay soo bandhigeen ajandayaasha shirkan lagu gorfeenayo iyo qodobo qaarkood iyaga ay dood ay ka wadaan qodobada qaar ee warbaahinta laga qariyay aanan loo soo duusinaya waxaa ka mid ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkoodba si horudhac ah ay wax iska weydiiyeen in ajandayaasha lagu soo daro muddo kordhinta ay sameysteen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo waliba lacagta qaabka loo qaybsanayo miisaaniyadda lacag 7 milyan gaarayso oo dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskii qalinka ay ku duugtay shirkadda Coastal Exploration la yiraahdo heshiiska shidaalka lagu saxay shirkadaasi wararka ayaa sheegayo qodobada shirka lagu soo qaadanayo in maanta laga heshiinayay shirkan oo dhowr maalmood ka socon doona magaalada Muqdisho ayaa intiisa ugu weyn sida xogta aanu ku helnay wax wararku ay sheegayaan in diiradda lagu saaray in maanta isaarag uu ahaa madaxduna ay kala warqaadanayeen qaabka shirarka soo aadan ay u dhacayaan waxaa ka soo muuqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyada oo ay u muuqateen madaxda maamul goboleedyada ay si guud oo federaal ah ay kaga heshiinayeen qaabka loo qaybsanayo miisaaniyadda ka imaan karta wax soo saarka dalka shirkan ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan in maalinta biritaha madaxdu ay isla garteen in laga wada hadlo nooca ajandaha uu noqonayo kadib markii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo waliba madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Madoobe miiska ay soo saareen qodobo culus qodobadaas oo ay ka mid yihiin in la simo hanaanka loo qaybsanayo lacagta 7 milyan ah oo dowladdu loogu deeqay la wareejada la hadalna ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheen
sababeynayso in miisaaniyadda ugu badan la siiyo maamul goboleedka Puntland oo ah maamul goboleedka ugu weyn marka loo eego dowlad goboleedyada kale ee dalka, taasi oo ay si weyn ay kaga xumaadeen Koonfur Galbeed iyo waliba Jubbaland. Shirkan ayaa sidoo kale hadallo kooban oo laga jeediyay waxa ay madaxdu isku aragti ay ka hayeen dagaalka ka dhan ururka Al-Shabaab ee lagu dhawaaqay. Geesta kaletana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa seeftiisa gasha ka saaray iyadoo ra'iisul wasaaruhuna uu soo saaray go'aamo culus oo toos u saameynayo shaqaalaha dowladda iyo qaar kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasi oo si toos ah ugu socdo wasaaradda maaliyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina sidoo kale saameynayo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kale ee dowladda. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa faray wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya in dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee gunada ay qaataan laga jaro qoondada lacageed oo dhan 20% taasi oo soconayso ilaa iyo muddo 3 bilood oo xiriir ah sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Xamse. Sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in shaqaalaha joogtada ah ee dowladda iyo waliba kuwa aan joogtada ahaynba ee darajadoodu ay tahay iyaguna in laga jaro guno gaarayo 5%. dhammaan lacagahan laga jaray wasiirada iyo shaqaalaha kale ee dowladda ayaa loo weecin doonaa dardargelinta howlgallada ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka socdo guud ahaan wadanka. Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale waxa uu faray wasaaradda maaliyadda inay furto akoon gaar ah oo loo adeegsanayo lacagahaasi iyo waliba taageerada lagu talagalay ciidamada huwanta. Waxaan idinka rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aad uga howlgashaan arrimahan ku xusan warqadan ayaa lagu yiri amarka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa indhaha lagu wada hayaa sida uu dhaqan geli doono amarku soo saaray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaana ay u muuqataa talaabadan mid si weyn u dhiirigelinayso dagaalka ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee inta badan ka socdo gobolada Soomaaliya. geesta kaletana dowladda Mareykanka ayaa shaacisay magacyada madax shabaab ah oo aan hore loo aqoon, kuwa oo la sheegay in ay muhiim u yihiin marka la eego silsiladda dhismaha kooxdani. Bayaan dhawaan ka soo baxay Mareykanka oo la soo dhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa lagu shaaciyay magacyada rag mas'uuliyiin sarsare oo Al-Shabaab ah, kuwaasi oo lagu daray liiska argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Mareykanku waxay si adag ugu taagan tahay wadada ay ku caawinayso dadaalada dalalka Bariga Afrika iyo waliba Midowga Afrika hogaaminayo ee la dagaalanka khatarta argagixisada Al-Shabaab oo kamid ah ururada ugu halista badan ee hoostaga Al-Qaacida oo dilay kumanaan qof oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah oo lagu laayay Soomaaliya iyo Bariga Afrika ayaa lagu yiri bayaankani. Bogga magacyadooda lagu xusay ee lagu daray liiska argagixisada ayaa u muuqda kuwa aanan hore loo aqoonin, balse warka ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay yihiin shakhsiyaad sida buuxda gacanta ugu hayo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab xilligan muhiimad gaar ah u leh kooxdan argagixisada ee Al-Shabaab. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kale lagu soo rogay xayiraad dhinaca dhaqaalaha iyo waliba cunaqabateyn gaar ah oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanaya iyaga iyo cid walba oo la tacaamusho. waxaa go'aankan laga qaatay xubnaha lagu xusay ee aanan hore loo aqoonin kamid ah Maxamed Mire oo Mareykanku uu sheegay inuu yahay nin hogaamiye sare ka ah kooxda ururka Al-Shabaab, si la mid ah Yaasir Jiis oo kamid ah hogaamiyaasha sarsare ee kooxda ururka Al-Shabaab. Shakhsiyaadka kale ee aan hore loo aqoon oo ay dowladda Mareykanku shaacisay waxaa kamid ah Yuusuf Axmed Xaaji Nuuro oo ah ninka saddexaad ee magaciisa lagu sheegay warka ka soo baxay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee uu hogaamiyo Antonio Blinken. shakhsiyaadka kale ee ay dowladda Mareykanku ay xarab dhowdo waxaa kamid ah Musab Caato Maxamuud Cabdi Aadan oo ah qofka shanaad ee magaciisa lagu soo bandhigay, kaasi oo dowladda Mareykanku ay sheegtay inuu ka tirsan yahay xubin sare oo kamid ah hogaamiyaasha ugu sarsareeya ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dhammaan shakhsiyaadkan ay ka qayb qaateen weerarkii Hotel Desert D2 lagu qaaday iyo weerar kale oo qorshaysan oo laga fuliyay gudaha Soomaaliya, iyadoo bayaanka Mareykanku uu soo saaray sidoo kale lagu sheegay in qaar kamid ah xubnahani nolosha lagu qabtay iyada oo ay iskaashanayaan sirdoonka Soomaaliya iyo midka Mareykanka. geesta kaletana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay amiirkii ugu sareeyay kooxda ururka Al-Shabaab ee u qaabilsanaa gobolka Shabeellada Dhexe kadib howlgal ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan duleedka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Amiirkan la soo bandhigay ayaa waxa uu sheegay in isku xirka gobolada Galgaduud, Mudug, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Jubbooyinka dhammaantoodba uu kooxda u qaabilsanaa, isla markaasina inta ugu badan canshuuraha qaybteeda uu si gaar ah u xilsaarnaa. Shakhsigan la soo qabtay ayaa kamid ah sidoo kale xubnaha ugu sarsareeya ee kooxda Al-Shabaab kadib howlgal gaadma ah oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeen ayaana suuro geliyay in gacanta lagu dhigay. Mar uu hadlayo waxa uu sheegay inuu isaga isdhiibay isla markaasina uu diyaar u yahay in dowladdu uu kala shaqeeyo helidda xogta kooxda saaxiibadiisa, waxaana ugu baaqay saaxiibadiisa kale inay iyaguna soo dhiibaan.
ugu dambeyntiina daawadayaal haddii aanu fiirino dagaalkii gobolka Shabeellada Dhexe ayaa la warinayaa in hal sabab darteed uu qarku ugu saaran yahay inuu joogsado. Warar ay warbaahinta Somali Weyn Production ayaa waxay sheegayaan in dagaalkii ka soconayay gobolka Shabeellada Dhexe maanta uu hakad u galay. Sababta uu hakadka u galana ilo wareedyo kala duwan oo la hadalna waxa ay sheegeen inay tahay in halkaasi la geeyo ciidamo gaar ah oo kuwa danaba iyo ciidamada gaarka ah oo ay dowladda Turkiga tababartay ee Gorgor uu hogaaminayo taliyaha militariga Soomaaliya. Inkastoo General Odway Yusuf Raago uu ka soo noqday kadib markii ciidamada militariga Soomaaliya ee qaabka qabiil u abaabulan ay diideen inay ka soo baxaan jiida hore ee dagaalka, isla markaasina lagu wareejiyo ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab iyo kuwa Gorgor oo ay dalbadeen dowladaha Mareykanka iyo Turkiga in iyaga lagu wareejiyo howlgalka si baa la yiraahdo halkaasi lagaga sifeeyo dagaalyahanada Al-Shabaab degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada ku dhow ayay ciidamada beesha Afgaal ay ku guuldareysteen muddo toddobaad inay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka saaraan. Hase yeeshee hadda ayaa la sheegay in ay diideen inay halkaasi ka soo baxaan, waana sababta kaliya ee la sheegay maanta dagaalku uu ku joogsaday iyaga oo khilaaf iyo waliba isfahmo xoogan uu ka dhex taagan yahay saraakiisha sarsare ee ciidamada. Gudaha daawadayaal intaas ayaa ku soo meeraya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Somali Weyn Production tan iyo kulantii